ku xidhnow badda cas 24 gaar ahaan guriga ummadda ayaa waxaa ka furmay shirka madasha aragti wadaagga Soomaaliyeed oo soo qaban qaabiyay macadka daraasaadka iyo siyaasadda Heritage oo ah sanadkii saddexaad ee lagu qabanayo waddanka Djibouti. Waxaa ka soo qayb galay in ka badan 150 ruux oo isugu jira mas'uuliyiin iyo siyaasiyiin ka kala socday dowladaha Djibouti, dowladda federaalka Soomaaliya, dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo dowladda Somaliland. Wafdigan ayaa waxaa sidoo kale ka soo qayb galay marti sharaf kale oo isugu jira ururada bulshada rayidka iyo marti kale oo lagu soo marti qaaday. Shirkan inta uu socdo ayaa waxaa diiradda lagu saari doonaa oo halbeegga la qaatay sanadkan ay tahay doorka nabadda Soomaalida, sidii ay uga qayb qaadan lahayd nabadda gobolka loona xoojin lahaa dhulka Soomaaliyeed nabadda iyo ammaanka ay ku noolaanayaan. Shirkaasi waxaa furay oo hadallo ka soo jeediyay dhanka Djibouti wasiirka arrimaha islaamka, dhaqanka iyo awqaafta mudane Muumin Xasan Bare. maantii ani walaalayaal waxay tahay sharaf farxad weyn inaan idin kala qayb galo shirkan qiimaha iyo qaayaha badan ee ah madashii saddexaad ee fikir isweydaarsiga maskaxmaalka Soomaalida. anoo ka wakiila dowladda jamhuuriyadda Djibouti guud ahaan madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo runtii abaka martigelinta maanta aan u fadhino gaar ahaan waxaan gacmo furan iyo qalbi furan ku soo dhaweynayaa walaalayaal marti sharafta dhamaantood aqoonyahanka amba guud ahaan goobjoogta maanta nala joogta ee ka wada qayb galaya shirkan aan u fadhino maanta. marka xiga walaalayaal waxaan hambaliyo iyo bogaadin u soo jeedinayaa walaalihii gabdho iyo wiilba ahaa ee ka soo shaqeeyay shirkani sidoo u qabsoomi lahaa. kolka aanu nimaado nuxurka oo ah halku dhaga amba mawduuca maanta la doortay oo ah aqoonyahanka Soomaaliyeed dowrka kaga aadan inuu ka ciyaaro nabadeynta geeska Afrika. runtii kullayba waxa weeyeen waxa loo baahan yahay si wax dhibaato meel taala xal loogu helo in la fikiro kolka laga soo bilaabo nabi aadan waqtigiisa ilaa maanta joog waxaan 100% ku kalsoonahay wax weyn oo wax qabtay inaad soo saaraysaan laana waxa meesha isku timid waa maskax intaas oo maskaxood oo meelo kala duwan ka timid oo cilmiyaal kala duwan haystay runtii marka isku tagaan wax wanaagsan bay soo saarayaan. sidoo kale waxaa ka hadlay agaasimaha macadka Heritage Cabdirashiid Xaashi, wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad iyo madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamuud Cumar. sanadkan waxaan ugu talagalnay inuu mawduuc noqdo laba mawduuc aan saddex gelinay mid inuu noqdo Soomaalida intaan noqon lahayn wax laga sheekeeyo iska dhibaataysan annagu kaalinta aan ku leenahay geeska Afrika inay nabad hesho inay hore u socoto bal aan ka tashano oo madaxda kilka noo yimaadaan dowladda Djibouti ha timaado annaga aan nimaadno aan dhahno war Soomaaliya hadaan nahay gobolkan 3 milyan baan nahay maxaan ka galnaa Abiy Ahmed baan ka sheekeynaa maalin meesha ka degay ee gaar ahaan wasiir Cagjar mise annaga madaxweyne Cagjar gaar ahaan mise annaga dad fikrad leh nahay in la yiraahdo marka inta cid kale ka hadlayna Soomaalideenu aan dad saameyn la noqono dhahno horta annaga xagee u guureynaa Cagjar muxuu wadaa madaxweyne Ismaaciil muxuu wadaa xamar maxaa laga wadaa qurbaha maxay wadaan ganacsatada maxay wadaan in la isku yimaado. laakiin guud ahaan anu waxaan aaminsanahay labada qodob ee ugu muhiimsan xoogga in la saaro ay tahay si looga mid dhaliyo discussion-kan waa in sidee loo sii xoojiyaa nabadgelyada ama nabadgelyo la'aanta jirta hadda sidee looga baxaa in xoogga la saaro. taas marka la dhameeyo waxaa iman doonta iyaduna fursadaha hadda jira sidee looga faa'iideystaa khataraha jirana sidee looga badbaadaa. waxaa inta badan xoogga la saarayay saaka halkan discussion-kii inagoo Soomaaliya kaalinta aan ku leenahay dalalka geeska Afrika iyo regional integration-ka hadda midna badalka Itoobiya ra'iisul wasaare ku baaqay oo kale oo mid aan aaminsanahay inuu Soomaalida anfici doono furaanshaha dhaqaale ee la soo jeedinaya uu yahay sidoo uga faa'iideysanaa kale ma aha meel hadda group selected oo koobanta meel isugu yimaadeen ay qori doonaan waxyaalo mawduuc gaar ah guud ahaan knowledge production-ka guud cid walba ra'yigeeda inay ku soo biiriso iyo ahmiyadu tahay laakiin waxaan rajeynayaa in heritage ay hore u sii wadi doonto discussion halka soo baxa
oo recommendationka guud ee la jeediyo sidee loo waafajiyaa interestiyada gaargaarka ee cid walba leedahay si loo gaaro guusha inay noqoto dowladeed ka dhabeynta in regionka gobolkeenu geeska Afrika uu noqdo mid nabadeed mid ku dhisan iskaashi iyo isu furaansho aad ayay muhiim u tahay in ay nolosha wanaagsan nolosha fiican ee ummadda geeska Afrika in nabad iyo iskaashi la helo iskaashi ma imaan karo haddaan nabad iyo deganaansho iyo xasilooni isi jiro gobolkeenu wuxuu ku caan baxay colaado kala shaki iyo dib marka in la nabadeeyo la iskaashado muhiim bay u tahay Soomaalida ugu faa'iido badan in gobolkan uu nabad ahaado una iskaashado colaadaha gobolka ka jiray inaga inuu ku dhibtay inuu ku badan ina ka soo gaartay Soomaalidu waxay noqon kartaa qowmiyadda labaad xagga tirada haddii gobolku isu furan yahay midda kaleeto waxa kala qoqoban oo isu furmaya haddii nabadi jirto iyo iskaashi iyo isu furaansho waa Soomaalida Maxamuud Cusmaan TV-ga caalamiga ee badda 24 Djibouti kada diyaaradaha ee Air Djibouti waxay ku diyaarisay qolka VIP-da oo ku yaala gudaha madaarka caalamiga ah ee Djibouti soo dhaweyn diiran iyo si gaar ah lagu shaqeeyo ayay kula diyaar yihiin shaqaalaha shirkadda oo kugu adeegaya goob si casri ah u qalabeysan naftuna raaxa iyo deganaansho ka helayso waxa kale oo ku diyaara gaari kuwa raaxada ah oo ku geynaya halka ay diyaaraddu ka kacayso wixii faahfaahin ah ee inta dheer kala xiriir taleefanka iyo ciwaanada shaashada kaaga muuqda Djibouti sugar Djibouti sugar